waxaan ka mid ah dhalinyaradii bananbaxa ka qayb gashay shalay oo yacni sida xaqdarrada ah uu waxbad ugu ridaayay ninka askariga inuu yahay la sheegay wax aan yacni ku aqoonsan karo oo dhar ah oo askariyana ma wadanin aniga oo microphone keystay ninkaas waxaan u sheegay markasta inuu sharciga ilaaliyo inuu xabad igu ridin hadduu askari yahay haddoona ahayna sharciga aan hortagi doono intaas ba iima suurtagelin wuxuu igu sii ridaayay xabadda sida aad social media ka aragteen aniga wax yar ayaan ku darayaa ma badinayo annagoo gabdhihii Soomaaliyeed ah shalay madaxweynaha waan u soo banaan bixinay ayadoo waliba uu madaxweyne wadanka ka yahay Xasan Sheekh annagoo dhaheena Xasan Sheekh dastuurka iyo sharciga ha ilaaliyo oo doorasho xaq ah ha qabto midaas ma ahayn in annaga yacni aan qolo gaara la jirno waxaan ilaalinaynaa sharciga wadanka 30 sano ayaan burbur ku soo jirnay ku dhalanay intaan kula ekaana mana rabno inaan burbur mar labaad ku laabano ilmaha aan dhali rabno waxaan rabnaa inaan future fiican u sameeyno haddii yacni Soomaalida ay wax kale ku heshiin waayeen dastuurka qabyada ah ee ku heshiiyeen waa inay ilaaliyaan dadka labada koox ee siyaasadeed u dhaxeeya waa annaga oo shacabka ah waxaan leenahay yacni labada kooxba waa inay isku soo dhawaasho muujiyaan nabadana ka shaqeeyaan doorasho xaq iyo xalaal ah ay qabtaan waxaan si gaar ah ula hadlayaa marka madaxweynaha asaga ayaa talada hadda wadanka haya ma hayaan musharaxiinta dhahaya xilaan doonina ma hayaan mas'uulna igama aha waxaa mas'uul maanta iga ah ninka xilka maanta haya ee kursiga ku fadhiya maxaa laga doonayaa ninkaas inuu ilaaliyo nabadda marka ugu horeyso tanaasulka xataa waxaa laga rabaa inuu asaga muujiyo maadaama asaga uu kursiga ku fadhiyo ummadda dhan mas'uul ka yahay xataa wuxuu mas'uul ka yahay musharaxiinta iskood u istaaga waa muwaadiniin Soomaaliyeed aniga waxaan rabaa inaan bari wadanka ka taliyada haddaan maanta musharaxiinta dhaho yacni qalqalbee wadaan wadanka waxay wadaan lama arko kursi un bay rabaan waa sidii madaxweynaha uu imaaday asagana u qudbeynay shir jiraad u qabanay lahaa dastuurka ha lagu laabto markuu imaanay intii oo kale wadaan wax weyn ma wadaan marka waxaan leeyahay madaxweyne caburinta shacabka ah ku wada ka daay marka koowaad annaga dhalinyarada Soomaaliyeed aan nahay waa banaan baxeena xaqa u leenahay dastuurka u leenahay dastuurkan akhrisanaa loo waa baranay annaga dad wax baranin oo jaahiliina oo meel taagan manihin maanta wacyiga Soomaaliya ka socdo waa la soconaa annaga waxaan leenahay marka madaxweyne banaanbaxa waa xaq dastuuriya oo qof kasta oo muwaadin leeyahay ama dhalinyaro ha ahaada ama duqoow ha ahaada ama haween ha ahaadaan marka ma caburin kartid mana noo diidi karta xaqa aan dastuurka u leenahay waa xaq ka dhigay madaxweyne ay lagu aqoonsaday inaa madaxweyne tahay dastuurka waa anigana xaqaas isiinay inaa banaanka soo istaago oo hadlo askarigii shalay xira wuxuu yiri banaanbax yaa ogolaansho idin siiyo taas waxay cadeynay in xataa uusan ogeyn dastuurka inuu cadeynayo adigoo waxba ogolaansho haysanin haduu qodobka 20aad akhriye waxa ku dhahay aniga marti ugu ma ahi wadankan inaan banaan baxo adiga marti kaaga ma ahi adiga ciidan qaranaa tahay amarkaaga qaadana oobiya iga qoray waa banaan baxaya anaana la taagan maanta banaan baxaya beriyaan banaan baxaya beridan baan banaan baxaya madaxweynaha haduu yacni ku guuleysto 4 sano kale waxaan yacni u hogaansanayaa sharciga uu ku guuleystay haddii qof kale imaadan oo beri dastuurka diido waa u banaan baxaya banaankaana la taaganahay aniga xabsi la igeliyay ama la xira ama la ijir dilay intaba waxa mas'uuliyadeeda qaadanaya qofka markaas talada haya waxaan leeyahay madaxweyne annaga waa banaan baxeena ilaa dastuurka iyo sharciga u soo laabato waa banaan baxeena haddaanan banaan bixin maanta haddaanan dastuurka u istaagin beri u istaagi meeno kuwa ka dambeeya doonana naguma maamuli doonaan dastuur ee xoogooda inoo adeegsan doonaan annaga waa banaan baxeena dhalinyarada Soomaaliyeed hal mid aan leeyahay haddii aad guryaha maanta ku jirtaan oo aad soo bixi weysaan oo banaanbaxa aad ka qayb gali weysaan oo ninka maanta qoriga wato sida foosh xun xabada iyo gurida aad ka cabsataan adinkana beriya idin imaanaysa adinko guryihiina joogo oo guryihiina ka bixin xabada la ku ridi doonaa maaha ina aniga banaanka ugu soo baxay in yacni aan sharaf ku hela ama sumcad ku hela ama wax kale aan ka raadinayo
maaha waxaan banaanka ugu soo baxay inaan codkiina ku hadlo haddaa maanta codkiina adinka muujin weysaan aniga xaqayga ma ka gambanayo waan muujinayaa beriyaan banaan baxa beri dambe banaxa u sheega dhalinyarada laakiin waxaan leeyahay cabsida aa guryaha kula jirtaan waa leen kugu imaan doonaa haddaadan banaanka usoo bixin oo adinka ka hadlin waa leen kugu imaan doonaa cid inkaga aamusayso guriga ku jira ma jirto waxaa la caburinaya xataa ganacsatada qof shaqeyn doontana ma jirto because shaqaalihii xataa waa la caburinaya waxay sameyn karaan lama arko marka waxaan leeyahay oo kusoo gabagabeynaa sharciga iyo dastuurka wadanka lagu dhaqay ha loo soo laabto waxaan sharciga waafaqsaneen annagu ma sameynayno mana sameyn doono